war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 22 bishan May duqeyn dhanka cirka ah ka fuliyeen deegaanka Beledul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Weerarkaasi ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana dadka ku dhibaateyn jiray dhulka miyiga ah ee deegaanka Beledul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ah, sida uu sheegay Hedy K-Birch oo ah agaasimaha sirdoonka u qaabilsan Africom qaaradda Afrika. Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaan in duqeyntaas ay wax ku noqdeen iyo in kale dad rayid ah, isla markaana qiimeyn ay ku sameynayaan khasaaraha guud ee ka dhashay, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sanadkan 2019 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah ee uu ka fuliyay Soomaaliya, waana duqeyntii 38aad ee sanadkan 2019 kaliya uu Mareykanka ka fuliyay gudaha Soomaaliya.